madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeriyihii dadkii ka soo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyo la'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqannay. runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax ilaahay uu ka gurman karo, ilaahay uu nooga soo gurmada aan rajaynayno waaye. dad aad u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyo la'aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku hayo shabaabka. dadka markaan warsannay hataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan, shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan. marka runtii madaxweynahana waa kaga mahadcelinaynaa inuu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada Baydhabo iyo dadka ugu horeeya uu arkayo inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen. si gooni ahna uu mas'uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray. ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa, deegaanadoodii loogu celin lahaa, nolol loogu samayn lahaa, cadowga soo barakiciyey loogala hadli lahaa. maxay ahayd nin walbana deegaankiisii iyo noloshiisa uu ku noqon lahaa ay ka bixi lahaayeen barakacan iyo qaxootigan. maanta Soomaaliya maalin ay qaxootinimo ku noolaan karta ma aha, ayadoo daruuftan ay jirto deegaankaada inaad qaxooti ku noqotana waa wax sax ma aha. ilaahay baa sakeenay alxamdulillaah, haddana ilaahay baa naga bixinayo. waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala sida uu madaxweynaha uu koow uga dhigay priority-giisa koowaad in amnigana la sugo, dadkaana barakacyaalka ahna lagu celiyo barahoodii, nololna loo helo. waa kaga mahadcelinaynaa, annagana waa ka shaqaynaynaa insha Allahu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشارة معامل مدونيسا inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan. habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM. fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM.